بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا معنا ونكسن دمانتين بقى ومركل إيا برنامج كينا وايا أرق برنامج كينا وحن كسو قادنا دادك وايا أرق نولشا هديهين وايل تطرح لحاضة إيا تطليرا أو لفتو لكل ماي وحيابو راد كرهبي تاريخ دود أما بنولشودا تطبات كان هدبا وحال كان inoogu martiya oo barnaamijkeenan aynu ku wareysan doonaa Mujaahid Cabdisalaan Maxamuud Jaamac oo loo yaqaano Cabdisalaan Turki Cabdisalaan Turki waa shakhsiyad ka caana Somaliland waxa uu kamid ahaa halgamayaashii xoreynta ee wadankan duruufo kala duwan ayaan la kulmay intii waqtigaasi iyo waayahaasi faraha badan leh oo ku dhex jiray marka Cabdisalaan أنا أقول لك وجود وين إن برنامج كان إن عبد السلام بالواحد نوجه ورنت هذا وقار ما يدرتي مركب جوه رئيسة هل كنت تقول رأتي بسم الله الرحمن الرحيم مخوه رئيسة حمدوني أنا كم بهالعليو هذه أول ما يقوم ارتقاضي برنامج كان مركب بعد بهذا تيفي جايو دمان با وسارد ورفنته أنت كبعدي سؤال شادي وحل الشيء كل سؤال بقولي كونتني لحدي حركات كلها تمركها waxaan ku dhashay Kenya المهم waxbarashada ugu horeysay halka ka bilowday waxaan ka bilaabay wadanka waxa ay wadanka xorriyad qaatay 1961 horaantiisii waxaan bilaabay waxbarashadii quraanka hargey bro yaan ka bilaabay dugsiga hoose dhexe iyo bar kamid ah dugsiga sare waxaan ku dhigtay dugsigii macadka loo jiray bro اسكندريه waxaan ku dhameystay xamar allah idii xamar ayaan ku dhameystay marka iskandarigii aad dhameysay maxaa sameysay halkaad ugu gudubtay markii aan dhameeyay iskandarigii hal allah idii xamar ka baxnay waxaan qadar ku qoray group la xiisdoon oo la qaatay oo markaa la qaatay ayaan ku jiray ciidamada leeliska loo qaatay waxaan lagu qaatay November bay ahayd 7deedii baan ka dhoofnay oo mutane Russia روش كان سؤال الله واحد كوني سؤال بقوليه تضباط يافرتي. إن مركا إن عبد السلام تركي مع عيدا كإن ملترية أيه مركا. عيدا كقلب كذا ها. أنا هالكاس حق صبرتي وحن كم من نقطة مكان صون ضد دجال كي تدري تضباطك أيه انقرأ. هالكاس أو عن جدا تشجع كهرانة عيدا هي قرأ ها مرهن تشجع لقبتنا ولا السوعلي hargeysa la keenay waa la raray wadadatan boorame yaanu qaadnay qolicheed ka marayno iyo hadana bidix loo celiyay meel la gogta yaanu ka dhacnay qolada ka mid ah aala ajsogoora halkaas herar ka baaray bal nooga waran inteena ka bixin dagaalka Itoobiya bal duruufiisi iyo jawgiisi bal adoo soo koobaya guud mar naga sii xaaladdu saahid markaas idinku ahayd dagaalkaasi horta ciid xoogga dadka Soomaaliyeed haddii la yiraahdo awood ahaan haddii lagu dagaalgelin lahaa sidii ciidan ahaan lahaa u geli lahaa Itoobiya ayaa meel ku qabsan lahaa laakiin waxa dhacay ciidan la fagay oo la kala reebay ciidanku markuu shaqeeyo la soo art waxa weeye wax farshaxan uu ku socdaa waa la kala guray wala jabhadiyay qolqolbi wala kala dhigay markii adigu galeen markii dambena 7 bishii June ay noqotay markii goday gashay ayaa SOS dhacday in la galo markaan ciidan fagmay dadana halka waqooyi waxa ugu horeeyay dhinacan dirdhabe yaani isgaarsi xumadii wuxuu iyaga dacwatay dib loogu soo noqday halkan aagan jijiya la galay jijiya markii la galay halkaasi waxaan ahaa group la socda guutada tobnaad Axmed Naaji watay halkan la yiraahdo arooreyska iyo dhinaca garab cas ayaa labada ciidan ka dagaalamayeen ciidan saddexaad oo jiifada maray dhinaciisa oo meel la tuur qeelo iyo ka dhacay dagaalku soo suuxi habeenkii bilaabay jijiga oo arkayaba anigu dagaalku ugu dambeeya waxaanay koodi September bay helay saddexdii aan galano jijiga markaan galnay guutadaas waxay wadatay baabuurta la yiraahdo beepayada gaashaman
shanteedii horta waxaan ku galnay madaafiic lagu qabsaday aeroreska lagu qabsaday ayaan ku helnay meesha oo daasodona oo wax qori ah soo furannay magaalada haysanaa deetana waxaan u dhacay dhirbaxa adag waxaan soo galay ciidan wata dababado dib bay noo dharbaaxeen nimankayga wadanay bebayada xabad kala noo soo bixin meesha waxaan soo istaagay meesha lalaa cayl axmaar halkaas soo degnay deetana ciidamadii kalaas ku yimid aagishe muddo ka bacdina dhibaaxa xubaxdana u dhacday madaaficdii aag lasu keenay meesha oo waxaa ka mid ahaa 4 ururoo daasodona 3 ururoo 85 BMkii tradishii wax walba meesha yaaleen maanta waxaan ahaa gruubkii madaaficda difaacday marka laga yaacaba koox ciidaha ku difaacay ayaanu hayn saakiil badan baa halka maantaasiyo ku burtay waxaan garanayaa urin dhalo madaafiic oo laba walaa in haayeen nin Bashiir iyo Daahir Gurxan la yiraahdo ayaa ku dhintay oo isku atriyay ku ahaa urkaas tanga ka maray maalin baahed waxaan sanahay ciidan dii adoogayadoo watay tigirka ayagoo faramaran tanga lagu soo waray waxaa naga riday ururkii birshax loo jiray oo nin loo jiray daahir dheer oo sheekhaasha watay ayaa dhinaca garab case dhinaceeda naga yimid ninkaasaa goor dambe garalmadii gurmad nagu yimid oo naga difaacay oo dib u celiyey taas baa maalin baahayd waan ka baxnay inuu hagaag aakhirkii ciidankii xilligaasi ay soo jabeen dib ayay u soo noqdeen adigu markaa maxaad halkeed uga sii gudubtay halkaa waxay ahayd waqtigii la soo noqonayay 7 March waxaan joognay xer hoos meel la kumbulsha agteeda subax waxaa taasina la qasbay ciidamadii dhabarkayga ciidamada la soo dhigay hortayda ciidamada dagaalamaya waxaa dagaalamaya oo wada tigirkada ama boobtangiyada iyo bebayada waa kubaan dagaalada xagga wala waa Jarmal ka bari madaafiicda waxa garaacaya lagu garaacaya waa Yaman infantry oo Malaysia kale waxa weeyaan Ethiopia iyo kubaan soo jira dabeetana adigu soo bixi qodobka soo baxday baan hayay dhinacan bikul dib wadada soo maray ka baxnay meesha la gaaska koobaad qodobka asaastay baan lahay waxaan degnay meel la yiraahdo Chiid agteeda oo la yiraahdo Haymaal maxalli maal iyo Haymaal farahayd halkaas aan degnay markii toosii hore oo doox yar ah markay ahayd bishii June ayaa waxaa noo yimid wasiirkii gaashaandhiga Cali Samatar iyo hogaamadii ciidamada oo dhan marka anu asalkayga waxaan ka tirsanaa hogaanka warshadaha maxamed xaashi lixle ayaa xukumayay halkaasay u yimaadeen maxamed xaashi markuu arkay halka maxaa ku dhigo waxaan deeqaan lagu hayaa bartiga bidakayga lagu dhigto warshadii ka mid ah Hargeysa ayaan ku soo noqday intee laga ka shaqeynaysa marka warshadii ka mid ah Hargeysa ilaa laga isteedka ka baxay warshadii ka mid ah Hargeysa marka laga isteedkii baad aslan ku beertay SNM birtaankeeda waxa ka gudaha ka jiray wadi gudaha lagu asaasay ee kamid ahaa Hargeysa joogay toos aniga waxa ay yimid maxamed xaashi lixle oo markaa hogaanka xukumayay ayaa ay yimid 9 iyo ma 9 dambe December baahed dabeetana wuxuu yidhi may November baahed wuxuu yidhi waxaan doonayaa ku arko xamal baad imanaysaa halkan dicbigu la qaatay oo ka hadlaya waxaan dhibaato taagan waxaan tegey xamar January halkaas kitaab uu saaray wartaydi waana ka mid noqday in hagga la galo la iska xiriixo deetana maxamed cilmi Samatar oo joogay airportka ayuu yidhi nin laado in xashara ku yimid lagu xiri doona qaybta aad degan tahay oo aad dabada caada wixii abaabulay tirkooba ka soo samee saasan ku yimid aan joogay wixii tirkooba wixii jiraan in xashara maxamed cilmi loo gudbinayay
waxaa kaloo joogay markaa aagan oo laga kaxay aanan tegin maxamed kaahini baa ka mid ahaa aadan shiinaa joogay axmed dhagax baa joogay markaasaa la bilaabi doona wax ka dambeeya guristooda nimankaa arkayso oo la guraya cabdillaahi kaahini la yidhahdo oo sahankaa joogay rag badan baa joogay kabacdi waxaa dhacday isla 80kii halkaa anoo lixle hortaagan oo joogna ayaa bedelkii lixle la keenay laga bedelay ciidamada laga bedelayba xagee loo bedelay markaasi waxaa la yidhi maxaad tahay yaa ku meelayn doontaa madaxweynaha ku meelayn doonaa kursigaan ku fadhiyan buu yeesu u kacay wuxuu galay wasiirkii gaashaandhiga wuxuu gudbiyey balaaqiisii oo ku yidhi aniga waxay qoratay oo soo tababartay waa seerjito ciidanka xoogga dalka hadday iga maarantay way ruqsaynaysaa anugu ma tegayo buu halkaas ama xooggan ahaanaya ama la ruqsaynaya deetan wuu soo noqday waa sii baxaysaa oo halkaa ay ku noqo tigiradeedii qaatay waa xusanahay waa kalaba kacleyntii markuu samayn doono february waa soo duulay halkaan imid hargeysa ku soo noqday muddo yar ka bacdi 80kii dabayaaqadeedii ayuu yimid lixle hargeysa soo degay hawshu way iska socotay aadan shiina iyo halkan laga kaxeeyey axmed dagax laga kaxeeyey maxamed cilmi laga kaxeeyey maxamed kaan laga kaxeeyey waa la wada mustaafir waxaasoo dhan xamar markaa waxaa soo baxday shaki ama siro hoose oo tuhul ah ayaa keenaya miya bedelka fara badan leh saraakiishii maxamed cilmi iyo maxaa yidhi cabdillaahi kaahin waxaan leeyahay inqalaab baan wadaan baa lagu yidhi oo inta laska qabtuun baa la mustaafiriyey kuwan kale markuu gaali yimid bahdo guraaya ayay ahayd idhaafiya oo waa la wada dareeriyey sidaas loo joogo ayaa 81kii weya inta guursa wax badan aada loo guray ba waxaa soo waxa dhacday ninka la yidhaahdo 82kii horaantiisii ninka la yidhaahdo cabdillaahi saciid oo jooga dharkaygay koralkaas oo maalmaha la dili doono halkan abaabirkuu ka socda ilaa gaaska koowaad ilaa ciidanka halku taxay oo dhan qaybta dhexe qaybta dhexe kormeertaan la yidhaahdo waa la isku wada xidhan yahay maalmaha dilka la doonaya cabdillaahi saciid la dooni doono waa maalmaha aadan shiina iyo axmed dhagax ay soo galeen hargeysa oo aynan guutooyinkii hayeen iyo xabsida hayeen ayaan xil wareejin ku samaynana bay yimaadeen adigu waa waxay ahayd January 82kii deetana tii alla heedo ninkaana qasab iyo dulmi baa lagu dilay nimankana markii layli baxa ay hawshooda dhamaysteen baxa la yidhi dee waa baxeen waxay ka tallaabeen xadka 19 December ayay ahayd على جنوري صح لبي استاتيك دبتنا waxay hadeen la baxo bataankii waxa ka horeeyay kuwaas oo bees u ahaa Axmed Cali iyo jabhada oo duriye digtay oo afraad ay ka mid tahay markay baxeen waxay ku hagaageen dibiile markay tageen Axmed Dagax iyo Allah yarxamu yaa shiina Sheekh Umar Qowdhan Sheekh la yiraahdo dibiile jooga ayaa ay tageen sheekha waxa uu diray oo ku hagaajiya ka markay maadeen Sheekh Ibrahim Sheekh Yusuf Sheekh Madar u taga kelimada uu taga Sheekh Ibrahim leeyahay waxa ahayd halkan waxa isku markii hore gudaha wax laga wado bixitaanka xaggaas kala yimaadeen aad shiinayo dibadna halkan markay yimaadeen lixlayo waxa la maxay bixitaanka gudaha wax laga wada heelay way warameen dibadna Sheekh Ibrahim baa loo tagay Sheekh Ibrahim Allah yarxamhu baxa saasa loogu diyaariyay baxaan dibadna shucuur u tagay shucuur bay la joogeen muddo maanta shucuur madamay sax weyn dhaqaqa way doofeen waxay tageen ilaa Arsaba waxa ku soo la kulmay u tagay halka ku xigay Maxamed Kaahin dibadna waqtiga ay talaabeen SDF
oo ka horeysay sanamta way joogtay deetana Ethiopia ku tiri laga bilaabo maanta aagan deegaantihiin haya ilaa iyo seela ka guuro xagga aagan dhexe koonfurta u guura aagan dhexe intan aslam yaa iskale waa laga raray way soo noqdeen duriya degeen sidaan xusuusanahay baysaska October 2018 ayaa la bilaabay in la fidiyo oo duriyo oo dibida ahaan jirtay xarshin oo laga dhigo qaybtan la dego maxay ahayd awaare ilaa mashla kaabakor la dego ilaa baashi gaashaamo saasan isu fidiyey baalday deetana ka bacdi ayaayr buu u soo tarmiyey SNM labi isteetikii SNM wax yar baahed dugsigii horeeyay Mandheer wuxuu ahaa jinacsane oo laga raray wax loo gudbaa guureyn halkaasaa lagu aabulay ciidamadii SNM waqti bay qaadatay ay aad u rafaaday labi isteetikii saddex isteetikii tirada SNM labi isteetikii ilaa iyo afar isteetikii waxaan qaamay gaadhin 500 ciidanku muu dhaafin يعني مع داسلهودا afar isteetkii ciidamadii labi isteetkii iyo saddex isteetkii wixii la abuuray halagoodii ay awaare la sugayay wixii kala sida cali 300 xogaa bay haayeen waa soo saaray marka ciidamo kale oo fududna baalde gaashaamo meesha kaamo bokor ama barabaso meesha la yiraahdo muxuu ahaa langeerta iyo kaam hashin waxay joogeen xogaa waxa joogay muxuu ahaa quraamaale debeelka dibiile iyo meesha la duriya in wahagaag in bal intayna ka soo gudbin markaa in Cabdi Salaam Turki goorma ayada adigu in go'aansateen talawdood ku birto sanadka ka tagto halkaad sii martay horta intaan bixin labi isteetikii bishii July ayaa aniga guriga ku jiro la qabtay aniga Allah yarhamu Ibrahim Koodbuur oo mujiraha إن عبد القراش وكابتنها الله يرحمه دتay oo shahiiday nin la daahir dubad oo marka ixtiraha loo ixtiraam marka qaatay iyo aniga kabtanaha iyo mas'aak xigeenah oo afara sideed sala qabto waxa la qaab wadan waxaan ma wadno wala xilay gaani bal horgeeyay waxaa la joogay maanta loo keenay gaani nin la takar priiska ha dadwaniga khudbad la wareystay waxaan waxa la wadiiyay ninka Ibrahim Gomas bartay waxaan ilaa ruushba iyo ardaynimadii ilaa waan socon halkii waxa ma wadnaa kulli waxa sheegaysaa noo soo cadeeya telefoonku qabsaday wuxuu yiri arintii cirray ku socota waxaan soo saarayaa diyaaradda subaxii أيوة بحسن حبيبي ماشي اللي عليه إبراهيم كدور وحان الله يرحمه مرحوكي ونويب لحلي وحان إبراهيم اللي حلي كل شيء إبراهيم أنا بحن إبراهيم ولا الدين يلا بقاضيه حكى له دينيه صح ولا قاضيته ذكرها حمر فرهم قال لي واحد داعي ديالك بلن بله أيا داعي المستتكي واي دتنا ايربورت kala laga qaaday nin wanaagsan oo raado Ibrahim waxa 7 abgaar waxa koreela iyo waxa ku ogaadeen wada sarkaala waxa la geeyay talsi guud waxa lagu sugayay ikraado abaanduri ciidanka Ahmed Ciriiri Ahmed Sahal Janka ahaa iyo nin koreela oo la Cabdi Kahin عبدالله كانوا نوجي أنا وقال كان معمل قرعته والله ورا وكيل اللي حاجة وركي وهلا
isagana wuxuu waramay jarankii deetana waanu soo istaagnay waxay maxaad doonaysay maxaad haydeen waxaan nidhi anaa hadlay dee anigu waa soo qaado dee mara koors baa noo wadaa ku dhishay xagga maraykanka iyo jarankii baa qarxay deetana cabdillaahi kayn baa hadlay wuxuu yidhi waxaan waxba siin wuxuu lacag sii min 2 kun sii ya loo kala shil xukumi baldari kusaaniyo wuxuu tegey siyaad bare marka cali samatri aagay jiraan wuxuu ku yidhi meesha maana xukuma managa xukuma mise inaan ka yargaane jooga xamar hargeysa jooga cidda soo musaafirinaya muxuu soo bedelayaa aduu halkii markii baan go'aan baan gaadhay aan baxno ilaa aniga waa soo gudbay lacagta sidana maxamed cali oo jooga markaa xamar ayaa kulanay isagana kumban lamada soo qaaday nin walba waxaan tiikaaga wakaa labada kun haysta ummadda yaa raaca magaala bax ala baxo waan dareer markay wada baxeen maan saddexaadii afraadii yaa anaa gaar soo qaatay gaariga nin baan kala ahaan jiro oo daahir ilaado halkan joogo la xidha mar ayaa gaarigan ii soo qabtay gaari kale sida nin wata ina dhig dhaqaajala gaarigan kale waan soo kaxaysanay anay ninkii burcaan soo galnay 5 subaxnimo waan ka degay halka la yiraahdo shell batroolkii aan dhigay baskii waan kusoo wareegay hargeysa soo galay anuu markaa ilaahay hargeysa maalintii la qabtay ilaahay waxa hal qabtaan yiri underground buu galay ilaahay underground ku jira ayaan soo noqday dadka underground ka gal hargeysa halkiisa aan wadnay aan joogno hawsha wadnay waxa soo gaari jiray soo noqon jiray axmed nilaado xasan salamaanayo الله يرحمه وديته سكان هذا بلع بين ودلي السلام عليكم waxaa noo imin jiraan ku gudaha laga soo gudi jiray la Ahmed Cumar iyo hoos jeediyo beeska lagu soo aajiyay anaga haayeen arimihii halkan markuu underground galana ina dusay Cabdi Ismaaciil dusay xiriirka magaalada ee dadka markaa la wareegay waxa dhacday somehow in gaari la dilo mashruuca ayaa la baabulay tiibaan markaa waxa waday Cabdi Ismaaciil oo xashiid qabtay ee ka soo qaatay tiibaan la wadnay adoo soo hoosib waxa dhacday in aan fashiltay markaas anagu baxnay waxa markaa jiray aan baxayo oo go'aan oo qaatay heedo waxa ninka la yiraahdo Ibraahim Khudbur Allah yarxamo iyo maxaa ay gutaale maxamed gutaale la yiraahdo soo kabtanaha oo sida joogay labada nin baan ahaa backboneskayga anaga labada markii meel bacay noqotay ay waxay ma baxaysan Ibraahim xakuun adigu baxmis ay gutaale jooga halkan jooga lixda markaa u adkaystay inuu bixin waxa wada baxaysan waxa jirtay alaabo halkan looga dirnay nin la yiraahdo Adanderi ya waa in nuur cawaale Adanderi la yiraahdo waa raadi kunta waa walkie talkie iyo tala iyo maxaa iyo rakaado wadaasha lagu hadlo alaabtii baa marka waxaan dhacayaa Djibouti baa yimaadeen baa leeyahay أنا أقول أنا قاعدين أنا جبت أفتح الدوام توبي هذا قليل هذا كبحي جبت له قرا مركز جبت له قرا خذت له بس مركز حرقيسة والله أنا كبحي لقبت كبحي ترى صح خاصة مري مسحبين بتصير حد وحنصير دحي إلى في ذي أنت صعد كيجو ما كان كل أنت ساعة لبيت 7 ساعات أو صعدة هتكون قشة جوتي كوكا جوتي حكى اللي في مركا إن لوكو قشة مسافة أنت على لو بقول أو كيلومتر نقول ساعة حتى ذاك تراوي في طنالة حكا هذه حشاية قرب كا جيبوتي يعني كقاضو لتو بها حقرو حقد الواحد ما كان جيبوتي قالي وحصل لها الصبح دنبه
marka gaadiidkii waad ka baqanaysaa inaad raacdo haddaan awal garanaya dee halkan ilaa gaaskuwaad gaaska waa gaaska joog jire waa la yaqaanaa marka magaalooyinka waad ka leexanaysaa waxaan magaalada aragba marka macid kale in dad yaqaan ah ku wado ka xas oo raacaysa صح halkaas ku boodaan bangariyaado tusha bilbil ma ajbuuta gal wax wadnaba dibtana ninkaraado Xuseen Migaag yaan habeen saarnay ninkii waxaan ku harabaa ninkaraado Yaxya Qadiimi Allah yarxamo Yaxya Xajbaani Qadiimi wiigii waan aragnay waxay sheegeen Cabdaaskar xalo ayuu abti qaado qaahiro u dhoofay masaasaha بس ما دعاء خلك له في أقول هذا هالكسر كدوفي لبي استتكي صح واحد نوفمبر تبي قريدي وحنتجي تيجي ديسمبر يدو أو ميني كونغرسكي أسلام كل هذا مركا كسر نوضين أكتوبر هان كسر شيء سكال هذا إسكاشيا لابد أورور oo ay kala saxdeen SDF ICO SNM oo Liibiya ka soo noqdeen Liibiya isku soo diiday SNM ay ahayd marka kii go'aan lagu qaatay waan baxnay waxaan markii December bay ahayd dhammaadkeedii January 3deedii shirka anti Mandela ayaa dhacday Mandela dadka yimid waan joognay waxaan tagnay bari ba markaa waxa in abaabul la sameeyo dhaqaale la sameeyo doonaya way markaan tagnay gaashaamo wal isku tagay ciidan SDF ta iyo waxaan ciidan leenahay in dagaal la wada galo marka SDF tu haysa tiga ka badan hubkii Liibiya ka xoog weyn hubkiisa daraba yaa Sulaymaan Kenya waxa boqol lan kursi qaarkood la saaray istaan waxay balankii iskaashiga in la fuliyo way dibetana halkii baan isku yimid taariikhdu waxa aad weyn in la galo somehow arrintii way socodayday meesha la yiraahdo Goreexon ayaa Saakiishi iyo wixii joogay ay galeen ayaa ciidanka hadhay way halka laba nin ba ku shahiiday uu horeeyay nin la yiraahdo Hilaac وها عفمات هذا اختها إلى محمد دارح محمد عبد غلوف إلى محمد وها وكاد بترول قيبت طيارة وقوي قلبي حيسن جري لما أنا بقول التماشى الله يرحمه تبتنا هكذا نقول شونا يا محمد حاشي الحلي يا عبدها عسكر yeereen meel la yiraahdo daabaco ayaan farsanay waxaan go'aansanay culayska ninka yiraahdo muxuu ahaa hayd barnaamijka bandooba dadka saaran reaction-ki jeelka aan dadka culayska khalid marka xabsiga Mandela uu jabiyay la jabiyay oo Mandela iyo halkan ba bariga u falxiray ee sahankiisa wixii aan dhameynay oo fadiiday كبعدينا حكاسي بانو كلا هذا محوها إنه ها باشي إنه رفع الله قال وقتها يعني قاضي سوء شركة وحفوا لي لحي عسكر طوش أنا يحيي حوالي عليه المبسيدة وأنا بيصنع وأنا صور ده عقلي بروح عن صوت جهل بروح عن صوت وقرأي جور كعب الماء شت كلامه. مركا عيدمدي دولدو لما دي حكي وشوقو حرية هاي ودوية وأنا صون قال لي مقادي دي ترى مقادي نتورك بقى حنا أو أكلها شغالة له بعد مشتري له. إذا كنت شغال له مركا. لا ما ربع كيس هو حرية بالبلاء وشنا. هالكي بنك سود دقني وحكم إذا مرق ما إني توالدتين إن عبد الله خبوضة معلنا هنشري وحكم إذا هو محبه وآد بالبناية معلنكي نستبعو هيستي معلنك أها وكون رجل ودي يبعو أفريو ستيتكي أقل كودو
wadadan aqal burcaa ee galay saxanay maalintii dambe waxaa laga keenay nin gaari karistaa wata oo tagsiilaha oo foosta la yidhaahdo waxaa ninkan raacaysa diwaahi baan ku raacay oo ku dhacay foosta inaan duhubaysanahay hubsidano waa ogyahay qorigaygii bastoo durxiyos waa sidana gaari xagga dambe ku ridnay waa bandoogii baa la saaray kontaroolka burco ilaa hargeysa malaa dhowr iyo 20 ma tiri karo oo kontarool burcad ka baxaysaa galool midoo ku yaala sheekh midoo ku xagga hore xagga dambe ka yaala dhexda midoo berbera afka laga baxayo aduu tira marahayn marka gaariguna waa gaari lambar shacab leh waa taxi tiriis bad gashantii marka ciidamada ku socotaa kuma socdo waxaan markaa martaan dhulka soo martay soo taxi waxa aan ku dhashibasta umad bay xirayeen basta shabaka bay xiran aslamna waa tood tushad ka soo gashay burco soo galay nin heer jida oo fiisu ka dhacayo ayaa la soo raacay oo nin cali baaqul leeyahay walaalihiin alxam sunu soo raacay xoolaha hadda berbera markan soo galay siyaad baa soo degay waa bandooyi baa laga duubay waa markii 40 bandooyi weeyaan dadana wadadii u qaaday berbera soo galay hotel berbera ku yaala ayaa maqsikeeda galay ninka yar baan alo adkaay foosto waan qadaynay waan baxnay batrool tagnay bilal bishiro babkii ku yiri u jiro waan xoosana khamiis baad waan la babgay saakil baa taan qaadan soo arkay garanayo heebe garanaya gaariga ku dhacay nasiibnaag bixida oo siyaad barmaray bandoogi ceerigii tashki iyo halay oo bandoogi qaad doono waa ka taba qaadnay goor casran hargeysa soo galnay waxaan jaad ka qaatay baal hargeysa hortiisa jaad ka qaatay kadib kabkaagina wad sidataa ma ka dhacday dee gaarigu ku jiraan waan soo galnay qaad marka qaatay gurigii aan sitay reerkii guriga laga saaro guriga hooyada joogta inaan kula kulmay marka inaan shay oo absalan magacaan la cabdisaana bixii ayaa jira ayaa heesaa guriga soo galas ka warama nabada kii gaariga waxaan u diray Ibrahim Kodur gaariga watay abdaas karro soo socda waxa soo qaaday nin la xariir oo Maxamed Sheekh Ismaan Nuur gabadhiisa qaba iyo kooxda soo qaaday doonaya halkaasaanu kaas Ibrahim doonay waxay Ibrahim iyo wuxuu tagay leeyahay Axmed Ismaaciil oo baamishriya ayuu sheegay iyaguna way kaxayeen xilaa cid dambe hadal soo hadal qaaday Ibrahim gurigu u yimid Ibrahim Kodur Allah naxariisto halkii yimid waan shaqay Ibrahim waa soo raysanay Cabdilaahi soo socdo Cabdilaahi baa habeenkii ugu horeeyay gurigiisa ku degay Ibrahim baa ka soo kaxiyay Ibrahim markuu ina fajig ay guriga fajig u keenay dadna kooxdii magaalada noo joogtay oo rag far badan ahaa oo ku kamid yahay rag badan asaantanite in laado Ahmed Subeer kamid ahaa Jaafar laba isleeyahay jubbaland joogka in tabliiq loo in xaashiis iimaana oo Maxamed laado Masuur laado wax kamid ahaa in shaqal leh Cabdiraxmaan Dheerahan haysta dugsiga siidamtan shaqaalaha haysan jiray iyo xafiis shaqaalaha haysan jiray baa kamid ahaa Axmed Saciid Gaabri oo bacaan baa kamid ahaa aduu waxa ninka Xasan Guure oo muddo asirta gabadha kamid ahaa network balaaran magaalada joogay waa hagaag in Cabdisalaan Turki bal qaybta koobaad ee barnaamijkeenan halkaasi ayaynu ku hakin doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo caawadeedo kale ayaanu idin soo gudbin doonaa qaybta labaad oo aad uga xiiso badan tan waxa sheekadu ilo joog doontaa halka haddii Ilaahay raali ka noqdo bal hawlgaladii lagu xuray Cabdilaahi Askar sidii Koodburiyo kooxdiisa Cabdisalaan iyo operation halka ka dhacay iyo qaabkay u dhaceen si ku suurta galeen iyo qodobo kale oo xiiso badan ayuu Cabdisalaan Turki inooga sheekan doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo balse caawa waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi وبركاته.